shan kelmadood oo aad inan kasta jacayl kaga kasban karto. Sida aynu ognahay waqti xaadirkan la joogo waxaa soo baxay aalado si fudud fariimaha la isugu gudbin karo sida mobile ama computer. taasina waxay hoos u dhigtay kalsoonidii iyo dareen falcelintii labada qof ee ereyada macaan isweydaarsada ay isku qabeen. sababtuna waa qofkii oo xaalad kasta oo uu ku sugan yahay si fudud fariin u diri kara, sida isagoo xanaaqsan, isagoo oo kaftamaya ama isagoo dhab ka hadlayaba. haddaba halkan waxaan kugu soo gudbinayaa 5 kelmadood oo inantii aad ku dhahdaa ay dhab ahaan ku jeclaanayso. lambar 1 waad qurux badan tahay. inan kasta waxay jeceshahay in laga faaloodo inta ay leegtahay quruxdeedu ama sida ay u eeg tahay, xataa haddii aanay quruxdeedu sidaa u sii buurnayn. si aad qalbigeeda u kasbato, isku day inaad ku dhahdo waad qurux badan tahay mar kastoo aad la kulanto ama si kale aad u aragtaba. lambar 2 waxaad leedahay qosol macaan. haddii aad danaynayso inaad inanta jacayl ku beerto, weligaa ha ka waaban inaad qosolkeeda wax ka sheegto. dumarku sidoodaba waxay jecel yihiin in lagu mashquulo marka ay dhoola cadaynayaan si ay u dareemaan danayn la danaynayo iyaga. lambar 3 maxaad hadda dareemaysaa ama sidee tahay? inaad kolba xaalkeeda weydiiso oo aad la socotaa waxay kaa dhigaysaa inaad tahay qofka ugu dhow nolosheeda, waxayna ku dhiiranaysaa inay hadba warbixin cusub oo iyada sir u ahayd kula wadaagto. lambar 4 hadda ayaan kaa fikirayay. isla markaad kulantaan ama ay ku soo wacdo, haddii aad ku bilowdo kelmadda hadda ayaan kaa fikirayay qaale ama hadda ayaan niyadda kugu hayay, waxaa niyaddeeda ka dhaadhacaysa inaad tahay qofka ay weligeed ku hamiyeysay, qalbigana way kuu furaysaa saaxiib. lambar 5 waan kugu qanacsanahay. kelmadda u dambaysa ee inanta aad ku kasban kartaa waa adigoo aan dareensiin cilladaha ay leedahay dabiiciga ah ama abuurkeeda la xidhiidha sida midabka, dherarka iyo qaabdhismeedkeeda kaleba. una sheeg inaad ku qanacsan tahay si kastoo ay tahayna aad ku rabto. waa haddii ay dhabkaa tahay, ogowna kuma jirto haddii aad xaraabaysi ama gaabsi uu ujeedkaagu yahay. ugu dambayn daawade, haddii aad 5tan kelmadood macmiil uga dhigto inanta uu haasaawu idinka dhexeeyo, waxaa markhaati madoon ah in ay inantaasu jacayl dhab ah ku qaadayso.